qofka bilaadanka haduu qof jecel yahay qabiilna meesha taagan. Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay Ruqiyo Cabdullaahi Maxamed ka dooratay ragga sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda. laba sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay hawarteeda xawad waa isla deganahay xaaladeen waa ka warhay jireec la wada yahay laakiin dhanka diinta bilaadanka oo waa isku hal muslimaan ina dhaada gaal waaye xaaraan u yahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waaye ee waaye xaaraan waaye marka ma bi ugu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa inaa qofka bilaadanka muslimka inay saas loo. Ruqiyo Cabdullaahi Maxamed waxa ay go'aansatay inay la noolaato Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay waxaana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka Soomaalida ayna dardaaran ku tiri qofka bilaadanka haduu qof jecel yahay qabiilna meesha taagan. qabiil dhamaan wali qabiil qiimeyn maan yaa taama badeen ana qofka bilaadanka da jeclaatid qabiilkiisna weydiina. maxaa soo jeedinay Soomaalida idin daawanaysa maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel maxaa talo u jeedinay qabiilkina iska dhaafaan qabiil waa bal dhamaad ma aan qabiil meesha intaale dadka hore ku dhaqmi jirnay madaxaysan waarid qabiil kuma xadeegaan dad la isku dinaa maana dad la dhiig leen isku daayay maana qabiil waxa taraa maana qofka bilaadanka da si dhab u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa war hoy dunida yaan lagu kibrin nabad ha loo daayo. Cabdishakuur Shaasha RTN Muqdisho.